السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال qodobada aad wararkeena fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida dagaaladii ugu cuslaa ayaa maanta waxay ka dhaceen waqooyiga Itoobiya sidoo kale dawladda Eritrea ayaa dhabarka waxay ka jabisay kooxda TPLF qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaalo culus ayaa maanta waxay ka dhaceen gobolka Wolia sidoo kale caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada magaalada lagu magacaabo Gondar ayaa markii ugu horeysay waxay martigelinaysaa dagaalada xooggan ee u dhaxeeya huwanta dawladda federaalka iyo kooxda TPLF sidoo kale bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay habraaci doorashada Soomaaliya lagu shaaciyay ee soo saareen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya haddaynu u guda galo qodobadaas oo faahfaahsan daawadayaal marka hore taariikhdu waxay ku beegan tahay 24 bisha 8 2021 qodobadeeni oo faahfaahsan dagaalo culus ayaa maanta waxay ka dhaceen waqooyiga Itoobiya ee gobolka Tigray dagaalada ayaa waxay u dhaxeeyeen dawladda Eritrea ciidamada ka socda iyo kooxda TPLF kooxda TPLF ayaa waxaa la sheegay maanta inay dagaalo xooggan ku qaaday ciidamada Eritrea ee ku sugan galbeedka gobolka Tigray sidoo kale waxaa la sheegayaa ciidamada Eritrea inay la wareegeen magaalada lagu magacaabo Humayra ee ka tirsan deegaanka Tigrayga iyo magaalooyin badan oo ku hareeraysan dagaaladaas ayaa waxaa la soo sheegayaa maanta inay ciidamo badan ku dhinteen oo ka socda kooxda TPLF iyo dawladda Eritrea dawladda Eritrea ayaa waxay sheegtay dagaalka inay uga dan leedahay inay kooxda TPLF khalkhalka iyo culayska ku haysa dawladda Itoobiya inay ka qayb qaadato ayadoo codsi uga yimid dalka Itoobiya ay markii ugu horeysay dagaalka ku soo gashay ee dalka Itoobiya sidoo kale waxaa la sheegayaa ciidamada Eritrea inay la wareegeen deegaano ballaaran oo ka tirsan tahay magaalada Humayra ee deegaanka Tigrayga ciidamada Eritrea ayaa waqtigii ay soo galeen gobolka Tigrayga waxaa lagu eedeeyay in ay geysteen dambiyo dagaal iyo kufsi aan loo kala abaalyeelin sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa waqti dheer waxay ka dagaalamayeen gobolka Tigrayga ilaa waqtigii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga Itoobiya ciidamada Eritrea ayaa waxay sheegeen waqtigii dagaalku bilaabanayay inay ciidamada Tigraygu si daandaansi ay weerar ugu soo qaadeen gobolka Tigray gobolka Eritrea sidoo kale ciidamada Tigrayga ayaa waxay sheegeen inay dagaaladii maanta ay ayagu ku gacan sareeyeen ciidamada badan oo Eritreana ay caagta mariyeen sidoo kale waxaa la soo sheegayaa galbeedka dalka Itoobiya waa gobolka Axmaarada inay dagaaladii ugu cuslaa maanta ka dhaceen gobolka Wolia oo ilaa shalay dagaalo xooggan ay ka socdeen ayaa waxaa la sheegay kooxda TPLF maanta inay loo maaran waayay inay mar labaad laga saaro magaalooyinkii ay horay u qaabsatay gobolka Wolia waxaa la sheegayaa maanta dagaalada ka dhacay inay kooxda TPLF ku gacan sareysay ayna ku durugtay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Axmaarada sidoo kale waxaa la sheegayaa magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada inay markii ugu horeysay martigelinayso dagaalada xooggan ee u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo huwanta garabka siinaysa ka socda dawlad goboleedyada iyo ciidamada TPLF oo dhanaha kooxda TPLF ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wacad ku marayeen inay magaalada Gondar 3 bari gudahood ku raqaban doonaan ayna cagta marin doonaan cid kasta oo hor istaagta hase yeeshee dawladda federaalka ayaa baryahan oo dhan abaabul waday ay kooxda TPLF kaga saaraysa meelaha ay kaga suwayin gobolka Axmaarada dagaalada qaraar ee u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo huwanta dawladda federaalka ay hogaaminayso ayaa maalinka ka dambeeyay ka daraya hase yeeshee lama oga meesha uu dagaalkaasi ku biya shuban doono sidoo kale dadku waxay sheegayaan dagaaladan qaraar ee ka qarxay mar labaad galbeedka Itoobiya iyo waqooyiga Itoobiya qayb galbeedka gobolka Tigrayga waa magaalada Humayra in uu ku soo beegmayo soo noqoshaankii uu wasaaraha Itoobiya ka soo laabtay dalka Turkiga ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waqtigii dalka ku soo laabtay isla habeennimadii wuxuu ku dhawaaqay shirweyne qaran oo dalka Itoobiya aysa looga tashanayo hase yeeshee dagaalada aad u qaraar ayaa maalmihiiba waxay ka bilowdeen galbeedka dalka Itoobiya waa gobolka Axmaarada
sidoo kale shalay waxaa laga gacansaday kooxda TPLF oo la sheegay in ciidamo badan laga qabtay magaalooyin badan ay hore u qabsadeen in laga xoreeyay sidoo kale qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen habraaci doorashada Soomaaliya looga hadlayay ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kulamadaas oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxyaalihii laga soo saaray waxaa kamid ah inay doorashooyinku sidoodii u dhici doonaan ay horeyba ugu dhici jireen guddiga doorashooyinka Soomaaliya inay awoodohoodii hoos loo dhigay hase yeeshee shalay waxay ahayd markay warmurtiyeedka soo saareen ururada mucaaradka sida xisbiyada mucaaradka ay sheegeen inay marna aqbali doonin wixii ka soo baxay meeshaasi sidoo kale maanta waxaa hadlay bulshada rayidka ee Soomaaliya oo sheegay hadaladii ay ku hadleen mucaaradka kuwa lamidoo kaleete bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa waxay dhaheen habraaci doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay marna ma aqbali doono inay taasi ka hirgasho gudaha Soomaaliya ayagoo moodo hadalkoodu inuu ka turjumay sidii ay mucaaradku u hadleen oo kaleete bulshada rayidka sidoo kaleete waxay dhahdeen hadduu habraacaasi sidiisa ku hirgalo waxaa dhici doonta dagaal qabiili ah oo u dhaxeeya qabiilada Soomaaliya maxaa yeelay baarlamaanka imanaya ma noqon doonaan baarlamaan xalaal ah oo u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed oo dhan ama ka turjumi doona aayaha dalka Soomaaliya hase yeeshee baarlamaankaas ayaa wuxuu noqon doonaa baarlamaan shakhsiyaad matalaya ama shakhsiyaad ay meesha keensadeen oo marna ka turjumaynin aayaha dalka Soomaaliya sidoo kale warbaahintu maray maanta la hadlaysay bulshada Soomaaliyeed ayaa dadku hadaladooda waxa ugu badnaa in ayna marra arintaasi arin dhici karta ahayn oo sidoo kale ay u baahan tahay doorashada Soomaaliya in si waafaqsan looga wada hadlo oo dadkoo dhan ay si waadixa u arkaan hase yeeshee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay u aragtaa inay 3 nin ama 4 nin intay ahaataba oo qol isku soo xidhay inay doorashadaas go'aan ka gaadhaan inaan marra la aqbali doonin sidoo kale bulshadu waxay hadaladeedu u badnaayeen doorashada Soomaaliya inaan marna noocan ay hadda tahay inaan marna la aqbali doonin shakhsiyaad kali ah inayna ayagu aayaha dalka gacantooda ku qaani doonin oo mar labaad miiska wada hadalka la iskugu iman doono sidoo kale maamul goboleedyada ayaa saaka waxay codsadeen inay kooxda xisbiyada mucaaradku ay la kulmaan laga wada hadlo wixii shalay laga soo saaray warmurtiyeedkaasi daawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh